بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso waxa uu dooron faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerar qasaare dhaliyay oo ka dhacay magaalada Kismaayo oo mas'uuliyiintiisa ay sheegatay al-shabaab xildhibaano laga soo badbaadiyay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ra'iisul wasaare Khayre oo dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud madaxweynaha Jubbaland iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka oo ku kulmay Goobweyn qodobadii lagu xaliyay xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii dabageed oo la ogaaday wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo la kulmay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya mid kamid ah maleeshiyaadkii ku dagaalamay ceel afweyn oo hubka wareejiyay Cabduqaadir Cusable oo shaaciyay inuu socdo qorshe ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu tanaasuleyso kiiska badda ka tirsanaa al-shabaab oo qorsheynay inay dilal geystaan oo la qabtay farmaajo oo ogaaskiisa kulan gaar ah la yeeshay kana hadlay arrin xasaasi ah xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab oo lagu duqeeyay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ciidamo diiwaangelintooda ka socotay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo la joojiyay kadib khilaaf ka dhashay iyo dabageed oo ogolaaday in xilka uu wareejiyo daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso kuwada ugu door karo haddii aad ku cusubtahay bartan YouTube ka fadlan subscribe oo rukmo gambaleelka guji si aad u heshto wararkii ugu dambeeyay aanu soo galeynaa bartan YouTube ka saaxiibadaada share u dheh sidoo kale ku soo dhawaada daawadayaal markana warkii oo faahfaahsan wararka laga helayo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in weerar qasaare dhaliyay lagu qaaday hotel lagu magacaabo Cascasay oo haatan magaciisa la yiraahdo Maamuus oo ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose mas'uuliyadda weerarkaas waxaa sheegatay ururka Shabaab ku dhawaad 10 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxa iyo weerarka lagu qaaday hotelka waxaana wali la maqlayay rasaas culus oo ka dhex socotay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ciidamada ammaanka ayaa weerarka ka jawaabay waxaana la sheegay inuu dagaal dhex maray kooxdii weerarka ku soo qaaday hotelka iyo ciidamada ammaanka ee Jubbaland dhinaca kale wararka aanu helayno ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan aqalka sare laga soo badbaadiyay weerarkii iyo qaraxyadii al-shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo aanu la xiriirnay ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Caananuug iyo senator Iftiin Xasan Baasto ayaa kamid ahaa xildhibaanada hotelka laga soo badbaadiyay iyadoo saacado badan ay qaadatay howlgalka lagu soo badbaadinayay dadka ku jira hotelkaas wasiir ka tirsan Jubbaland ayaa kamid ahaa sidoo kale dadka ciidanka hay'adda nabad sugidda ee Jubbaland ay soo badbaadiyeen wararku waxay sidoo kale sheegayaan hotelka weerarka lagu qaaday ay deganayeen dad shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxaan la sheegay inuu ahaa meel mashquul badan oo bulsho badan ay ku kulanto weerarka ka hor qarax ayaa lagu weeraray hotelka kadibna koox hubeysan ayaa gudaha u galay hotelka wararka qaar waxay sheegayeen in goobta ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ciidanka nabad sugidda ayaa la sheegay inay goobta gaareen isla markaana ay bilaabeen howlgal ay ku baacsanayaan kooxdii weerarka soo qaaday dadka la xaqiijiyay in ay geeriyoodeen waxa kamid ahaa gabar lagu magacaabo Hodan Naaleeye oo kamid ahayd saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya iyo saygeeda oo isagana la sheegay inuu geeriyooday iyo shakhsiyaad kale oo ku sugnaa hotelkaas oo kamid ahaa sida la sheegay saxafiyiin uu kamid yahay saxafi lagu magacaabo Gacmo Dheere dad kale oo shacab ah iyo mas'uuliyiin kale aan wali la xaqiijin ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkaas ay al-shabaab sheegatay mas'uuliyadeeda dhinaca kalena wararkan uu ka helayno degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in duqeyn lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab waxaana la duqeeyay 4 goobood oo ay al-shabaab ku sugnaayeen goobaha la duqeeyay waxaa kamid ah xarunta degmada saldhigga xarun qaraxyada lagu diyaariyo iyo xarun kale oo la sheegay inay ku sugnaayeen dagaalyahano la sheegay in loo diyaarinayay inay weeraraan fariisimaha ciidamada Jubbaland iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ku dhawaad 20 dagaalyahan ayaa ku dhintay duqeynta lala bartilmaameedsaday xarunta degmada sida warbaahinta ila lagu kalsoon yahay oo xaqiijiyeen xubnaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiray sargaalkii maamulayay saldhigga degmada Jilib oo magaciisa lagu soo gaabiyay Xasan Dheere iyo ku xigeenkiisa oo magaciisa lagu sheegay Macalin Cali sidoo kale dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa kamid ah dad u xirnaa al-shabaab kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa 5 ruux dhinaca kale waxaa jira qasaare xooggan oo ka dhashay weerarada kale balse aan la cadeyn karin inta uu leeyahay lama oga
heybta diyaaradaha dagaal ee fuliyay duqeyntaas hase ahaatee inta badan diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeyn ka fuliyay koonfurta Soomaaliya weli ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ku aadan duqeyntaas la sheegay inay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wafdiga oo maalmahan ku sugnaa magaalada Gaalkacyo oo marka hore safar dhulka ah ku tagay ayaa diyaarad ka soo raacay Gaalkacyo iyaga oo ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku soo dhaweeyay madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan, wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka ah, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Ra'iisul Wasaaraha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda Galmudug ee ku sugan halkaas isaga oo kala hadli doona xaaladda Galmudug iyo sida ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Madaxweynaha Jubbaland ayaa kulan la qaatay xildhibaano iyo mas'uuliyiin waxaana uu kula kulmay magaalada Goobweyn. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa mas'uuliyiin iyo dadweyne kala duwan waqti kula qaatay deegaanka dalxiiska ee Goobweyn ee dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda Jubbaland, xildhibaano federaal ah, odayaal dhaqan iyo dadweyne kale ayuu madaxweynuhu halkaas kula qadeeyay. Madaxweynaha ayaa dadka uu halkaas kula kulmay ka dhageystay aragtiyadooda iyo afkaaraha ay ku biirinayaan geedi socodka Jubbaland xilli ay soo dhowdahay doorashada maamulkaas. Waxaa la shaaciyay qodobadii lagu xaliyay xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii Yuusuf Dabageed, gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaa ugu dambeyntii soo afjaray xiisada ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Xildhibaan Nuur Iidow Bayle iyo xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoone oo Beledweyne saxaafadda kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen soo afjaridda xiisadaas isla markaana maanta oo Sabti ah uu xilka la wareegi doono gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan. muddo bil ku dhow waxaa noo suuro gashay in ay xalay khilaafkaas u dhamaado laguna gabagabeeyo si nabadgelyo ah. إن شاء الله تعالى waxaan filaynaa in bari ay xil wareejin ka dhacdo maamulka gobolka laguna wareejiyo gudoomiye cusub. Arintaas waxa ka shaqeeyay waxgaradka gobolka Hiiraan haday yihiin siyaasiyiinta waxgaradka haweenka ururada bulshada looma kala harin. Waxa kale oo ayadan suuro galiyay in arintaas u dhamaato xildhibaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo laga doorto meeshan مثلا baarlamaanka federaalka ah oo muddo bil ah joogay arintaas iskuna xil saaray iskoodna u yimid muddadaas bishaan ku dadaalay inay qanciyaan nimanka walaalahooda ah. waxaan leenahay guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku dhamaatay rajeed ay ku dhamaatay hawshaas sidii la rabay ku dhamaatay walaalnimo ku dhamaatay isafgarad ay ku dhamaatay ragaas way isu yimaadeen wixii ka dhaxeeyay way iska cafiyeen. madaxweynaha Yuusuf Dabageed waa sugeeyay wixii ka dhaxeeyay iska cafiyeen. waxa diyaar hadda loo yahay wada shaqeyn iyo walaaltinimo iyo iskaashi. intaas waa intii odagan Xuseen Cismaan la yiraahdo wuxuu ka mid ahaa dadka odayaasha ah oo nagala shaqeeyay xildhibaanada garab istaagnaa anagu dhammaan xildhibaanadii baxay iyo kuwa hadda jooga waxaan ka nahay wakiil waayo iyaga hawsha nooga tagay ninba uu dan u yeeshay dantaasna wadan oo mid caam ahaato mid gaar ahaatee annaga ayaa mas'uulka ah wakiilka ah oo wixii aan qabanay ayay nala waxaan qabanay iyaga nala qabtay wixii aan qaban weynana saasi noola qaybsan lahaayeen laakiin hadda guul bay ku dhamaatay iyagana waxa waaye waa sidaas ogaanaysan si bulshadu ogaato inaan arinta lagu kala tagin ee ay ahayd mid meesha ka socoto. dhinaca kale wararka la helayo ayaa sheegaya in Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu ogolaaday in uu xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Caraale iyadoo wararka ay sheegayaan in kulamo ay qaateen labada mas'uul isla markaana ay isgacan qaadeen kuna dhawaaqay in la dhameeyo khilaaf ka taagnaa. ilaa hadda xilka lama wareegin gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan asaatee dhawaan ayaa la filayaa in la qabto xaflad uu xilka ku wareejinayo gudoomiye Dabageed oo hadda aqbalay in xilka uu ku wareejiyo gudoomiye Caraale. xiisadan oo in muddo ka taagneed Beledweyne ayaa sababtay inuu ku dhinto taliyihii qaybta booliiska Maxamed Macow waxa uu ku geeriyooday dagaal ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. mid ka mid ah maleeshiyaadkii ku dagaalamay ceel afweyn ayaa hubka wareejiyay labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa dagaal sababay dhimasho dhaawac waxa uu ka dhacay deegaan duleedka ka ah degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag kaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiya beelad. dagaalka oo geystay dhimasho in ka badan 20 ruux iyo dhaawac sademeeyo
ayaa waxaa haatan la sheegay in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka magaalada Ceergaabo ay kala dhexgaleen. wararka la helayo waxay intaas ku darayaan in mid ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay waan kadib ay ogolaadeen inay hubka wareejiyaan si loo xaliyo dagaalka, sida uu sheegay mid ka mid ah waxgaradka degmada Ceel Afweyn. odayaasha ayaa sidoo kale waxay ku howlan yihiin sidii maleeshiyaadka kale ay dhankooda Somaliland ugu wareejin lahaayeen hubka si loo soo afjaro dagaal beereedada ku soo laalaabtay deegaanka Ceel Afweyn. si kastaba ha ahaatee tallaabadan ayaa ku soo aaday xilli dhowaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu amar ku bixiyay in ciidamada kala dhex dhigo maleeshiyo beeleedyada ku dagaalamay deegaanada hoostaga degmada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in ugaaskiisa uu kulan gaar ah la yeeshay isagoo kala hadlay arrimo muhiim ah. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah madaxtooyada Soomaaliya kula qaatay ugaaska beesha Mareexaan ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow oo safar ku yimid magaalada Muqdisho. ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow ayaa u soo gaaray magaalada Muqdisho martiqaad uu ka helay madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha Jubbaland iyo xaalado kale oo ka jira gobolka Gedo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugaasku u sheegay in qorshaha uu ka damacsan yahay doorashada Jubbaland ee sanadka 2020 isagoo ka dalbaday lagu garab galo rabitaanka dowladda ee qorshaha Jubbaland. ugaaska beesha Mareexaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya u sheegay in ay ku garab galayaan dhammaan qorshaha uu ka damacsan yahay Jubbaland ee lagu badbaadin karo dadka deegaanada maamulkaas oo wajahaya dhibaato badan. ugaaska ayaa sheegay in dadka ku nool gobolka Gedo iyo guud ahaan beesha Mareexaan ee degta Jubbaland ay dhibaatooyin badan ka tabanayaan maamulka Axmed Madoobe, isla markaana ay doonayaan inuu isbedel ka dhaco hoggaanka maamulkaas. madaxweyne Farmaajo iyo ugaaskiisa ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo, isla markaana lagu dhibaateynayo dadka uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa ugaaskiisa u sheegay in uu sameeyay dadaalo badan oo arintaas wax looga qabanayo, balse ay jirto caqabado ay ku suurtagali laadahay xal u helidda arintaas, isaga oo ka dalbaday inay u dulqaataan oo laga warsugo dowladda Soomaaliya. ugaas Maxamed ugaas Xasan Yarow ninka ugu sareeya siixayaasha Jubbaland waxaana aad looga xushmeeyaa guud ahaan Jubbaland. haddii ugaaska ka soo horjeesto Axmed Madoobe waxaa halis ku jira rabitaanka iyo damaca Axmed Madoobe ee hoggaanka maamulkaas inuu mar kale ku soo noqdo. intiina xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble ayaa shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay wado qorshe ku aadan inay ka tanaasusho kiiska badda. xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo ka mid ah musdanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday xog la xiriirta muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Cabdiqaadir Cosoble ayaa sheegay inay maqlayaan warbixino ku aadan in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay ka laabtaan dacwadda haatan hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. xildhibaanka ayaa sheegay in dowlado iyo safaarado ku yaala Muqdisho ay cadaadis ku saarayaan dowladdu inay ka tanaasusho kiiskaas, isla markaana lagu dhameeyo meel banaanka ka ah maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ sidoo hadalku dhigay. wuxuu intaas raaciyay in arintan laga gol leeyahay in lagu burburiyo maamul goboleedyada dalka, taas oo uu ka digay. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay beenisay in wax gorgortan ah ay ka geli doonto arinta badda. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in aysan jirin wax kulan ah oo qorsheysan oo ay yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. dacwadda hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa la filayaa in dib loo furo bisha September ee sanadkan 2019. warkii uu daawadayaal xilligan idinkaga imaanayay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.